garyaqaan Maxamed Xasan Jicsin oo kamid ah garyaqaanada ka howlgala maxkamadaha kala duwan ee Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenada kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sharci darro ku tilmaamay inuu golaha hor yimaado la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ku dhawaaqay inuu jabay mooshinka xisbiyada Soomaaliland waxaana hadaladiisi kamid ahaa in la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu uu ka soo hormuuqdo golaha iyada laftigeedu waa mid reeban in la taliyaha sharcigu uu ku jira structure-ka ama qaab dhismeedka golaha wakiiladu uu dhisan yahay sharciga tilmaamaya dastuurka inoo tilmaamaya in golaha wakiiladu uu yeelanayo la taliye sharci laakiin la taliyaha haddii aad u noqoto qodobada sharci ee xeroosaadka golaha wakiilada ka hadlaya waxa uu soo gudbinayaa wax alla wixii sharci ama loo gudbiyo waxa uu soo gudbinayaa qaab qoraal ah isagoo ku soo socodsiinaya shirgudoonkuna ay golaha ka hor jeedin doonaa wixii talo sharciyeed ee uu maaragtay garyaqaanku soo bixiyay laakiin inuu shakhsiyaantiisa uu golaha ka soo hor muuqdo waxaan filayaa inay tahay iyada lafteedu arrin khaldan oo seegtay garyaqaanka horena umaynaan arki jirin iminka laftigeegana sharcigu awood uma siinayo garyaqaanka intuu golaha soo hor fadhiisto inuu isagu go'aamiyo ama uu magaranaysaayay ka soo horjeediyo go'aanka goluhu xoghayn buu leeyahay xoghaye hadal qorayaal buu leeyahay xoghayaha looga baahan inuu isagu golaha ka soo hor muuqdo shirgudoonka loo baahan yahay iyo ciddii kale iyagu ay siiyaan ama ay u ogolaadaan laakiin la taliyuu haddii uu ilaahay kuu rooyay qodobada sharci ma siinayaan inuu golaha soo hor istaago xunaad ee xeer number 20 kaasi oo ka hadlayay in tirada xubnaha komishanka doorashooyinka ee hadda toddobada laga dhigo 9 xubnood mooshinkaasi oo la taliyaha golaha wakiilada iyo shirgudoonku ay ka hor istaageen qodobka 24aad xubintiisa saddexaad ee xeroosaadka golaha wakiilada taasi oo aan run ahaantii qabo in ay ahayd mid aan saxsanayn ama sax ku ahayn qodobka loo istaagay iyo mooshinka la keenay la taliyaha golaha wakiiladu wuxuu sheegay in mooshinkani in tirada xubnaha toddobada hadda laga dhigay 9 in hore loo keenay golaha oo laga dooday taasina may jirin in hore looga dooday mooshinka in tirada golaha in tirada komishanka doorashooyinka laga dhigo 9 xubnood doodaasi mar kaliya aynu aragnay ama laga hadlay ama mooshin hore oo lagaga hadlay oo jiray oo aynu ka aragnay warbaahinta iyo golaha labada midnaba ma jirin qodobka uu adeegsaday iyo mooshinka aan laga hadlina waa kuwa isdiidan oo aan iswaafaqsanayn run ahaantii waxaan qabaa in mooshinkaasi 9 xubnood in laga dhigo komishanka doorashooyinka aanu hore u iman golaha wakiilada aan lagana doodin taasina waa mid tilmaamaysa sida loo adeegsaday qodobkaasi sharci aanu munaasabka ugu ahayn meeshaasi gudoomiyahana uu ku waafaqay gudoomiyaha golaha wakiiladu ama shirgudoonku way ku waafaqeen waafaqsanaantaasina waa mid aan bannaanayn oo iyadana aan sharciga waafaqsanayn hor istaagay ee la sheegay inuu jabayna run ahaantii waa mid sharci darro ah oo qodobka sharci si khaldan loo adeegsaday looga faa'iidaystay waana mid aan u arko inay tahay sharci jabin iyada lafteeda sidoo kale garyaqaanku hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay go'aankii xisbiga mucaaradka wadani uga baxay heshiiskii ay dhawaan ka gaadheen xisbiyada Soomaaliland murankii ka taagnaa doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka arrintaas oo garyaqaanku ku tilmaamay midi ku taag waana kan garyaqaanku isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa weeyaan talaabada uu wadani qaaday iyada laftigeedu muranku bay sii xoojinaysaa waa midi ku taag khalad ku saxun bay ka dhigan tahay marka xisbiga laftigiisu in marka hore ka baaraan dego shuruudaha lagaga bixi karo markii heshiiska uu galiyay waa taan ka hadlayay marka xisbiga xalku wuxuu noqonayaa xalku horta qaranka oo dhan buu yaala xalku ma mid xisbi kaliya u yaala xalka wuxuu u yaalaa dhammaan dhinacyada kala duwan ee arrimahan la xidhiidho hadday tahay golihii hadday tahay laamihii kale ee dawladda hadday tahay axsaabtii qaranka hadday tahay bulshooyinka reer Soomaaliland inay doorasho qabsanto dhammaanteen mas'uuliyiin baynu ka wadanay taasi waa arrin inaga inoo wada taalla dib baynu isugu noqon xal baynu keeni markaa insha Allah bidmillaahi kariim kasta aatee bulshada reer Soomaaliland ayaa aad u hadal haysay go'aankii oo dhawaan xisbiga mucaaradka wadani uga baxay heshiiskii xisbiyada qaranka Soomaaliland kaasoo xisbiga mucaaradka wadani ku eeday xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa inay gabi ahaanba ka baxday go'aamadii laga gaadhay heshiiskaasi Axmed Maxamed Cumar Axmed wararka telefishinka caalamiga ee bulsho Hargeysa.